anti wanaagsan muuqaal kooban ayaan waxaan kaga hadlayaa haddii ilaahay yiraahdo saan ballan qaadayba TV-ga Universal maxaan oga tegay sababtu waa maxay suuqa waxaa la isla dhex marayaa sheekooyin fara badan dad ayaa waxay ka shaqeeyaan xasarad inay abuuraan laakiin xaqiiqada anaa idinkaga dhacaya haddii ilaahay yiraahdo 2009 ayay ahayd xilligii aan ka shaqo bilaabay TV-ga Universal maantana waa 4 bishii 2021 waxa dhacday xilligii aan dib haddaan idin yara celiyay aan shaqada TV-ga Universal ka bilaabay waxaan halkaas ugu tegay dad gob ah landheerayaal ah xalaal ah shaqo badan hawlkar ah dantoodana yaqaana iskuna duuban maamul ahaan iyo ka shaqaale ahaanba oo qofka kale inuu gacan siiyo uu gacan qabta ay tahay mararka qaarkood waxa dhacda dadku inay isxasdaan ama maaragtay qofkan booskaaga ama galaa waxaas Universal TV kuma arag waxaan ku arkay dad raba inay soo gacan qabtaan odayaal waaweyn oo rugcadayaal ah rugcadaas saxaafadeed ah ayaa ka soo shaqeeyay qaarkood ay caawa naga hooseeyaan Allah u raxmado uu ka mid yahay libaaxi saxaafadda Soomaaliyeed aabihii Allah u naxariisto Axmed Xasan Cawki taare iyo taare Allah u naxariiste iyo waliba Cawd Darsalaad ragaas ayaa la soo iyo odayaal kale oo rugcadaas saxaafadeeda oo maanta jooga oo si fiican u taqaanaan ayaa la soo shaqeeyay rag khiyaar ah xalaal ah weeye gabdhuhu halkan studio TV-ga Universal kuma badnayn laakiin intoodii hore u joogtay inta hadda joogtaba dad gob xalaal ah 11 sano iyo barkaas dadkaas waxaan la soo qaatay waqti qurux badan wanaagsan hufan waxa ayna Universal TV buddhig u noqotay aniga caawid la hadlaya oo Cabdixafiin Maxamuud Jaamaca iyo bulshada Soomaaliyeed ee sharaftii karaamada leh inaanu isbarano inkastoo dadka badankoodu shaqsi ahaan aysan iyo qoonin laakiin magac iyo muuqaal laga yaabaa dadka qaarkood inay markaas yaqaanaan oo dhahaan odaygaas halkaa maraya waa odaygii Universal TV wada shaqaynteen iyo waxyaalo fara badan ayaa noo qabsoomay oo aan jecelahay inaan qodob u dul istaago aan ku dheeraanin si aan waqtiga idinku beeqaamiyo nuxurkana idin siiyo ogaay Soomaaliya tiin waxaad jeceshiin hadalka in laydiin soo dejiyo wasladu meesha ay ka go'do laga gooyo sidaa awgeed waxaa dhacday 11 sano inaan noqonay xabag waxa weeye waa xanjo weeye isku dhegan aniga TV-ga Universal dadka qaarkood mararka qaarkood magacayga oo aan magac common ahayn dadka badankooda aan loo bixinin Cabdixakiin ama Cabdiwaaxid ama Cabdifataax bay igu yeeraan ama Cabdixakiin ama Cabdixaafid because Cabdixafiid ah xoogaa yar ku yara adag waxay igu yeeraan markay magac qaban waayeen Universal and I know why saas u dhahayaan maxaa yeelay Universal TV waxay ahayd asaaskii in aan dibadda u soo baxo oo bulshada isbarano abaalkooda lama gudi karo hoosta ka xariiq hadday ahaan lahayd shaqaalihii aan wada shaqaynay iyo hadday ahaan lahayd maamulka labadaba waxyaalihii noo qabsamay laba u kala dhigayaa qayb siyaasad iyo qayb arrimaha bulshada haddaan ku horeeyo waxyaalaha aan maanta markaan dib u fiirsho aan dhaho wow waxaasu waqtigii aad geliseen way ku habboonayd haddaad tihiin Team Universal TV waxaa ka mid ahaa ubad Soomaaliyeed oo la qaadan lahaa degmo ka mid ah degmada London degmooyinka London oo 32 degmo ah ayaa waxay qaadanaysay koox ciyaar Soomaaliyeed kooxda ciyaalka waxay ka qaadanayeen waalidkood oo eedamo kala duwan loo soo jeedshay I don't want to get into details ayaa jirtay waxaa ka mid ahaa 2 wiil oo yar ah oo mataana ah oo sanad ka yar ama 2 sano ka yar xilli badan baa laga jooga xusuusteedu ka soo fiicna laakiin ilmo yar oo saqiira oo mataana ah labadii ilmood markaa ogaaday ayaa waxaan anagoo Team Universal ah hoosta ka xariiq Cabdixafiid kaliya maaha Team Universal oo wada soconna ayaa sheekaysanay waxaan nila arrintan maxaa ka qaban karnaa waxaa go'aan lagu gaaray in lala hadlo degmadii marka degmadii baa lala hadlay waxaan qoraal baan u dirnay professionala oo hufan waxaanu ku niri waxaan u baahannahay arrintan inaan soo dhex galno dad gobaan ka dhalanay Soomaali baa la yiraahdaa carruurtaan ma rabna in loo geeyo dad ajnabi ah dhaqankooda iyo diintooda aan garanaynin nacala shaydaan ku yaale fursad noo siiyey masaasa ha cabaar baan laga maqnaaday fursad baan siinaynaa dadkiina u bandhiga waxaan nagala qayb qaadataan baan rabnaa idinku aad timaadaan
tvgii bay yimaadeen barnaamij baan ka qabanay barnaamijyadii saamaynta weyn yeeshay bay ahayd labadaa ilmood in la badbaadiyo oo aan loo dhiibanin qof aan diinta islaamka haysanin ayuu suurtageliyey ama sabab u noqday tvga universal waxaa dhacday labadii wiil in markii dambe dad lagu wareejiyey ajnabi mar aan xusi doono laakiin waxaa xusid mudan in hoosta laga xariiqana mudan tvga universal saamaynta uu leeyahay kulmiyaa la yidhahda magaciisa oo ayadoon tv jirinba ummadda soomaaliyeed isu keenay degmada taleefonkeeda ayaan ku qornay qofkii raba ilmahaas inuu hayo dad soomaaliyeed baa waxay kasoo waceen borame qaarna waxay kasoo waceen new zealand iyo inta udhexaysa iyo australia you know down under baa lahaa maabka adduunka hadaa fiiriso hoosay kaga taalaa dad baa soo wacay dhiigooda uu dhaqaaqay oo doonaya ubadkaas soomaaliyeed afkoodii diintoodii dhaqankoodii inaysan ka tegin yaa suurtageliya alla ka suko tvga universal lagama sheekayn karo and this is just one example of saamaynta uu tvgaasu leeyahay waxaa dhacday ugu dambayntii inaan ku guuleysanay ilaahay fadligiis team universal inaan ku guuleysanay in gabar bakistaaniyada ah oo muslimada loo dhiiba labadaa wiil si ay caqiidadooda u badbaado cala alaqal gabadha ayaa haysata adoption baa loo sameeyey for good ayadaa haynaysa ilaa 18 sana ay ka gaaraan ay ka tagaan guuxa shacabka ayuu ahaa degmadaas waxay ii sheegtay oo kale taleefonka hotline baan yidhaha taleefonka ay ugu talagaleen in uu jaam noqday uu buuxsamay waa islaan soomaaliyeed af soomaali ku hadlayso goba waa nin soomaaliyeed af soomaali ku hadlaya waa kuwa ingiriiska jajabsanaya waa kuwa ingiriiska adiga kaa badiya khadkay ku jira degmadii madaxa weynaaday war ummadaan xagee ku qarsoonayn adeer gob baan nahay soomaali baan nahay hoosta ka haray hal example way tvga universal waxa kale uu suurtageliyey inuu u dhameeyo riyo wiil yar oo soomaaliya uu qabo magaciisa la yihahda cabdiraxmaan maxamed cumar wuxuu ku fadhiyaa wheelchair waa nin goba libaaxa kursigu ma hayn kara xaqiiqatan markaa la sheekeysatid qoys ixtiraam badan oo hayuu ka dhashay ninkaa dhalinyarada ayaa hadda kahor nala soo xiriiray wuxuuna yidhi waxaan jeclahay in aan tvga universal iga soo daayo muddo kadib ayuu haddana dadaalka oo isagu hayay inuu riyadiisa ka dhameeyo geed dheeriya geed gaaban u fuulay fartiin kaluu soo celiyo fartiintii kale ayaa wax suurta gashay inaan anugu noqdo qofkii ka jawaabay fariintii markii aanu kaga jawaabnay ayuu wuxuu soo diray muuqaal yaroo kooban uu leeyahay muuqaalkan daawada hadduu idin qanciyo ila soo xiriira muuqaalkii ayaa saamayn lagu yeeshay asxaabtii baan u yeernay waa wada fadhiisanay ninkan platformaa la siiyaa layiri tvgaan keennay oo qofkii u horreeyey ee wheelchair ku socda ee aan afka ka hadli karinin ee combyuter ku hadlaya tvga uu soo fadhiisto reerka uu ka dhashay waa reer go-aan adag qaatay oo yiri waa ku faraxsanahay qadarta ilaahay baana dadka su doona u abuura innahu facaalu lima yuriid siduu doona u abuura ilaahay waa kan arxamtu hooyadiin ku sawiray kayfa yashaa adigu you had no say ninkii yaraan tvga keenay bom ummadii dhan soomaaliyeed qof faraxsan qof ooyaya qof dhiirigelin ka helay dad ayagu baahi gaara qabay oo yiri oo anigoo gurigeed fadhiyey maxaan usoo bixi waayey waxaa suurtageliyey alla ka sokow tvga universal gobgob dhashay weeye yarkii yaraa sheeko dheer oo dhex martay kadib tiimkii arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo koox ah inta badan wejigayaa arki jirteen laakiin tiim badan baa waxaas ka dambeeya marka anigu melihi creditka keligay in badanna tvga universal life ayaa uga sheegay tiimkaas oo dhan baa iskale guusha waxaa iskale dhammaan shaqaalaha tvga universal iyo maamulka iyo dadka soomaaliyeed daawanaya ilaan haddayna idinku daawanin tv waxba sheegi maayo siyaananta haddaan dadku daawan waxba sheegi mayso dadka daawanaya weeye dadka waxaan qurxiya aad baan idinkaga mahad celinaa intaad horey u daawanayseen ee anigu aan joogay iyo inta aad dib ka daawan doontaan mustaqbalka soo socda maanta laga bilaabo hadii la yidhahdo ninkii odaga haddaan sheekaysanay wiilka yarkaa dhalinyarada cabdiraxmaan maxamed cumar wuxuu ii sheegay inuu jecel yahay inuu un-ta u fariisto dadka baahida gaarka qaba naafada ah si uu maaragtay ugu hadlo oo uusan u hadlin qof ordayo luga leh kow taas hawl badan baan u galnay waa noo suurtageli weyday waxaa kaloo jeclaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska dabadeedna waxaan go'aansanay inaan
xafiiska ra'iisul wasaaraha ingiriiska warqad u qorno aanu ka codsano ninka odaga in la keeno dadaalkiisa iyo riyadiisana laga dhabeeyo waxa suurto gashay in ay qaadatay waxa dhacday inay 6 bilood lagu qaadatay in la yiraahdo waa macquul okay maaya in la yiraahdo waa macquul shuruudaha kaaga daran baawur dadka baayada gaarka qabuul leeyahay oo walaalkii ku wada baawurkaas taariikhdiisa gudbiyay waxaan gudbinay nooca uu yahay waxaan gudbinay modelka uu yahay ama nooca uu baawur ka yahay I'm sure of VW German carbo على كل حال سان حسوسينا ku ogaayada baan gudbinay waxaan lagu yiri kursigiisa number 10 down street magalaya waa la soo cabira isi waa dawlad weey daraasadu soo sameeyeen kamaniga baawurka sameeyay la hadleen inuu ku register yahay waa yani ishow sharafta iyo karaamada dawladnimada على كل حال kursigiisa waan ku cabirnay kursigiisa cabir la soo diray cabirkiiba ayaga u dirnay cabirkii marka ayaga u dirnay baa la soo ogolaaday liir kursiga uu gali karaa laakiin waxa u baahan yahay videogaas hoos ku qaban doona insha Allah taala idin soo dhigi doona laakiin kursigiisu wuxuu u baahan yahay jaranjarada meel yar oo dheer baa jirto kama degi karo waa in bahal loo saaraa على كل حال bahal baa saas loo dhigay dhulka oo ku fuulo oo si wadada meesha isku sinaato subax aroortii waan tagnay meeshii haddaan meeshii tagnay xafiiska ra'iisul wasaaraha ingiriiska xilligii la ballamay wax yar ka hor ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala musabiqu lasbaab ayaa waxaa la furay albaabka weyn ee geedka madow ee laga soo galo ee baabuurta madaxda ay kusoo gasho ayaa waxaa laga furay wiil yar oo soomaali ah oo baahi gaara qaba oo aan hadli karin oo wheelchair la socda walaalkii baa garab taagan iyo hooyadii ilaan hooyo dadka lamid ma ahane xijaab bay qabtaa waa soomaali waa muslimad dhaqankeeday ku faraxsan tahay haddana waxay dhex taagan tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ingiriiska gudaha la geliya cabdiraxmaan marka ma hadli karo waa nin yaroo qosol laakiin uu qoslaya wejigiisa ka arkaysa uu faraxsan yahay guduhu galay waxaa lagu fariisiyey kursiga David Cameron uu ku fariisto ahaa markaas ra'iisul wasaaraha ingiriiska golaha wasiirada shirka xafiiska lagu qabto aragteen oo dunida siyaasadda lagu qorfeeyo ayaa la fariisiyey Olympic torch baa loo dhiibay sawirada oo idin soo dhigi doona dira Olympic torchka baa loo dhiibay leeyahay aragti soo dhawow tour baa loo sameeyay meel wadamayntiina hadiid baa la siiyey ilaahay ka sokow waxaa suurtageliyey TV-ga Universal oo ah kulmiye isku xiray ummadda iyo maxaa la caalamka intiisa kale iyo dawladda ingiriiska xafiiska ra'iisul wasaaraha David Cameron 100 times waa mahad celinayna marka qaarkood waxa dhacda dadka Soomaalida ah wadamada jooga kama mahad celiyaan waa ka eed sheegana anigu qasi ahaan ixtiraam badan baan u hayaa dawladda anigu qaxootiya ma ogeyn oo yar ay halkan nimid soo dhaweeyay gacmo soo dhaweeyay guri baa la siiyay carruurtiina education loo diray I appreciate that aad baan uga mahad celinayaa and I'm proud to be a member of the British maxaa lahaa shacabkeeda laakiin qalbigu waa Soomaaliya isagu waa suntan yahay waa gob weyn intaas haddaan kasoo tago intaas waxaa isu keenay TV-ga Universal muuqaalkiiba went viral everywhere buu gaaray waa mahad ilaahay waxyaalaha kale oo TV-ga Universal wax weyn uu ka qabtay oo in looga mahad celiyo ay mudan yihiin lama soo koobi karo laakiin arrimaha bulshada ka baxay waxa jirta ka hor gabar yar oo Soomaaliya oo luntay wad garan kartaa wadankan ilmuhu haduu lumo second gudiis intay qashaan oo bac lagu rido oo la jarjaro oo la faraxumeeyo baa la waayaa aw maalinta ma waxa la hawdkaas laga helay wad qiyaasi karto gabadha yarta markii loo soo sheegay ayaa waxaanu sameynay waxa TV Universal wuxuu baahiyay gabadha ayro raadinayo iyo numberka booliiska oo marka la xiriiro haddana waxay idin kaga dhaco qof la waayay markii wadanka Ingiriiska waa in dawladda aad u martay dawladana ciidamada amniga ugu horeeyay waa inay yiraahdaan qofka loo baahiyay laakiin marka qaarkood waxa kasoo qof leafletkiisa lagu keenay leeyahay qofkan waa la waayay tan dhaysa raadiye oo TV-ga laga soo daayay hadhow qofkaas inta qoraal soo diray leeyahay waa idin suu gareynayaa halkaan ku jiray waa baashaalay yaa ku yiri muuqaalkayga baahi so TV-gu waa professional maxaa lahaa media way mas'uuliyad buu iska saaray inuu adeego sharciga uu mar same time
long story short waxa dhacday gabadhii yareed muuqaalkii halkii lambarkii baan baahinay iyo maaragtay macluumaadkeedii booliiska waxay yidhaahdeen markaas helicopter bay ku raadinayeen si ay u fiiriyaan meelaha laga yaabo inay tagto oo xaafaday deganeeda ah oo beer ah oo maxaa lahaa luuqyada ah oo meelaha aan ishu degdeg u qaban karin markuu tv-ga universal gabadhaas uu baahiyey hooyo soomaaliyeed baa soo wacday oo tiri xalayta anay ila seexatay oo walaasheed gabar anugu dhalay oo iyada ay saaxiibo yihiin ayay soo raacday gabadhii yarayd ayaa gurigeeda iyadoo sayfa ku noqotay ciidamadii amnigu waxay yidhaahdeen ummad cajaa'ibaad tiisa wada shaqaynaysaan kundhigu universal tv wey creditka ayaa iskale ilaahay ka suko kasoo tag oo waxyaalaha kale oo tv-ga oo qabtay oo mararka qaarkood aan aad u xasuusta waxaa ka mid ahaa oo aan mar raba la iloobi karinin arrimaha xabsiyada iyo dhalinyarada soomaaliyeed iyadoo aysan jirin warbaahin soomaaliyeed oo ka hadasha xabsiyada dhibaatada iibinta maandooriyaha dhalinyaro soomaaliyeed oo fara ku tirisa ay ku mashquulsan inta badanna wanaag bay ku mashquulsan inta badan waxaa dhacda markaan aragna wiil yaroo soomaaliya huli qaba ama surwaalku ka dhacayo darooga iibiyaan no intooda badan ayagoo saasa darooga ma iibiyaan ahlu sharaf wey laakiin this is a culture style loo labisto wey calaa kulli xaal waxaa dhacday arrimahaas xabsiyada inuu tv-gu culays fara badan saaray dad fara badan oo soomaaliya walwal qabay ay wax badan ogaadeen iyo nidaamka waddanku soo u shaqeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay tv-ga universal hadduusan jiri lahayn arrimahaas inay suurtageli lahayn anugu xaqiiqatan ma aaminsanay haddii aan kasoo tagno intaas kasoo tagno oo idinku filan tahay jis qiyaasina siiyaan rabay tv-ga waa ku xirantihiin waa la socotaan waxaan laakiin maskaxdiina ma yara xanaxantaynayay waxaa kaloo dhacday arrimaha siyaasadaadan usoo gudubno waxaa suurto gashay tv-ga universal in uu waraysiyo ka qaaday xiliyo kala duwan laba ka mid ah prime ministeradii soo maray dalkan ingiriiska hadduu ahaan lahaa ra-iisul wasaare david cameron 2005 waxaa suurto gashay tv-ga inuu 2 jeer waraysi ka qaaday oo ummadda soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyo caalamka ka dhacay usoo gudbiyey mid wuxuu ahaa xafiiskiisa gudihiisa ayuu ka dhacay number 10 Downing Street baa lagu qabtay waraysigaas waxa uu ahaa u yimid xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaas dowladdiisu ay shaqaynaysay oo halkan joogay shirkii labaad ee London la qabanayay ayuu dhacay midna wuxuu ahaa shir looga hadlayay tacdiyada dumarka loo geysto iyo waxyaalo lamid ah labadaa jeerba tv-ga universal ayaa wararkaas toos u baahinayay oo aan ogahay tv kale oo soomaaliyeed oo markaa warkaa haystay ama heli karay inuusan jirinin marka tv-ga ayaa idiin adeegaya idinkoo guryihiina jooga latest news buu idin keenaya waxaa kaloo suurto gashay tv-gu inuu sidoo kale waraystay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan ingiriiska marwo Theresa May gabadhii go-aankii qaadka in la joojiyo qaadatay ahayd mahad gaara ilaahay ka suko abukar cawaale wiilka ilkaha cad oo gobta ah oo isagu sabab u ahaa in qaadka la joojiyo geedeer iyo geed gaaban u fuulay waraysigaas intaan la sii daynin ayuu tv-ga universal ogaa iyo abukar cawaale qaadka in la joojinayo dabadeedna war ayaan kasoo tabinay dadka soomaaliyeed aanu la wadaagnay qaadkii baa la joojinayaa ingiriiska indefinitely for good tv-ga universal buu ahaa waxa adeegayay oo mahaddaas iyo wanaaggaale inuu adoo gurigaaga joogo geel raacanaya oo kuu keeno wax ka dhacaya dunida qaybaheeda adduunka qaybihiisa kala duwan sidoo kale tv-ga waxaa u suurta gashay inuu waraystay ka badan 11 wasiiro dowladdan ingiriiska ka tirsan iyo kuwo kale oo fara badan oo ka tirsan qaramada midoobay hadday ahaan lahayn kuwa qaramada midoobay soomaaliya u fadhiya iyo kuwo kale ayuu markaa la shaqeeya ama dalada weyn ee qaramada midoobay hoos yimaada si uu adiga warkuugu soo tabiyo tv-ga universal waa lama huraan waa mid aan laga maarminin ayaan u arkaa sidoo kale tv-ga universal waxaa u suurta gashay ugu yaraan 4 ilaa 6 waraysi inuu ka qaaday ambasadorro dowladda ingiriisku ay u dirsatay soomaaliya oo marka ayagu waraysiyadaas beesha caalamka ay idiin soo gudbinaya tv-ga universal asagoo ku waraysanaya af qalaad haddana adiga kuu turjumaya si adiga afkaaga hooyo waxa jira ugu ogaatid tv-ga universal waxa weeye waa guldhigii saxaafadda ayadoo saxaafad soomaaliyeed jirinin
ayuu maaragtay dadka Soomaali u shaqaynayay kulmiyaa la yidhahdaa magaciisa dadka ka baro saxaafadda qaybeeda kala duwan ka baro I think intaas inay ku filan tahay waxaan jecelka odaygu muxuu oga tegey you see odaygu waa weli waa dhalinyar yahay laakiin waa daalan yahay haddaad ereyadaas isku fasiri kartaan ma aqaano odaygu waa dhalinyar yahay weli laakiin waa daalan yahay marka sidaas awgeed waqtiga ubadkayga qoyskayga hawlo kaloo fara badan oo gacanta ku haya awgeed way suurtageli weyday maalin walbo khamiista inaan tago tvga universal maalinta ku xigto jumcadana ifiya sameeyo hawl fara badan oo eed badan oo aan la soo koobi karinin oo dhinac walba inaad ka fikrisid ay tahay weeye barnaamijyadaasu siyaasadda ah gaar ahaan ifiya oo kale wuxuu ahaa barnaamij saameyn fara badan leh dadkuna ay aad u hadal hayaan markiina hana qaaday I think waxaanu samaynay 12 program kaliyaanu ka samaynay ama 11 midkood ayaanu ka samaynay waxaana dhacday inuu maaragtay hadal hayn fara badan oo dhaliyo dadku dhaliilaya iyo dadku taageersan labadaba uu leeyahay qof kastana ma qancin kartid marnaba laakiin adigu inaad daacad ka ahaatid wixii waxaad awoodina aad ka samaysid marka lagugu soo falceliyo lagu yiraahdo waxaan waa ku khaldanaydeenna aad qaadataan tvgu wuxuu leeyahay waxa la yidhahda shura markay wax dhacaan barnaamijka la sameeyo waa la isku yimaadaa war barnaamijka saanay ku dhaceen saanay noqdeen feedbackana soo noqday email ah waxaanan iska saxno waxaanan iska fiirino idinka daawadayaasha waxaad tihiin muraayadeennii aan isku eegaynay markaan khaldano joojiya markaan saxsanahay war hawl fiican baa qabateen labadaa dhexdood marka aad ku noolaatid si aad wixii mar walba u saxdid tiim dhan oo isku duuban oo hufanayay ahaayeen waxaan xasuustaa habeenkii aanu wareysanaynay madaxweynaha Soomaali galbeed xaruntiisu jigjiga ay tahay wadana madaxweyne Mustaf aanu wareysanaynay inta aan xasuusto ama aan ogahay waa khaldami karaa qofkii ugu badnaa oo siyaasad laga wareysto oo barnaamijkiisu uu gaaray in ka badan 8,000 oo live ah dadka qaar baa igu yiri waa ka badnay laakiin anu intaan xasuusto intaas ahayd ayuu ahaa yani barnaamij yar oo saameyn la ayuu ahaa waxaanu keenay aqoon-yahankii iyo haldoorkii Soomaaliyeed siyaasiyiintii xildhibaanadii madax hore kuwa maaragtay hadda madaxnimada doonaya kuwa amniga qaabilsan ayaanu keenay barnaamijyo fara badan baanu ka samaynay waxaan jeclahay halkan uga duceeyo walaalkeen anagoo dhan wada duceyno maxamed baashe ilaahay subxaana watacaala u raxmado qaybo ayuu barnaamijkaas ka ahaa marka walaalayaal tvga universal waa tvgaas way ii suurtageli weyday inaan labada barnaamij isku wado reerkii dabaro hawlo yaryaroo ii gaara aan wado youtube-kan iminka aad daawanaysaan markaan waqti u helo barnaamijyo siyaasad kuwo maxaa la dhahaa fan iyo sugaan kuwo dhalinyarada waxbaratay ah kuwo maaragtay diinta oo barnaamijyo kale soo wadna aan isku dhex wado way suurtageli weyday dabadeedna waxaan go'aansaday inaan walaalahay ka dalbado inaan kulano maamulka tvga universal sidii waagii hore iyo si ka badan bay ii soo dhoweeyeen waxaanu ku yidhi walaalayaalow waa isku wadi waayey waxaanu hawla see wax u aragtaan waxay yidhahdeen cabdixafiidow sidaa adigu jeceshahay ayaanu ku yeelaynaa walaalkeen baa tahay gacalkeen baa tahay tiimkeena ka mid tahay xumaanu nama dhex marinin dagaal nama dhex marinin xaraf nama dhex marinin oo dad iskuma qabno waa isku caloolfayownahay xiriirkeenu waa sidiisii hore marka waxaan joojiyey oo keliya labadii barnaamij oo aan waday laakiin tvga siyaabo kale ayaan ola shaqeeyaa oo maxaa la yidhaahdaa dadban oo markii horeba barnaamijyadan ka baxsanayd oo maxaa aan kala shaqeynayo aana ku faraxsanayn aan kala shaqeeyo horena ola shaqeyn jiray haatana xiriirkaas wada shaqeyntaa uu soconayo laakiin odaygu labadaa barnaamij wuu wadi kari waayey tiimku waa arkeen walaalaa nahay waa isjecelnahay waxaan u duubayaa waxay tahay dadka xumaanta faafiya jecel inay maaragtay xasanad abuuraan tvga university cabdixafiid baa isku dhacay waa been way waxba kama jiraan dad isku dhici kara ma nihin dadka qaarkood waxay rajeynayaan inaan halkan ka iraahdo tvga universal saan weeye iyo saan weeye iyo saan weeye iyo ima qabato for 3 sababood awgeed waa midda koowaad igama mudna waa midda labaad ma aha wax xumaan dad lagu sheego macnaheedu ma inay macsuum yihiin ma ahan laakiin organizationkaas intaan ka shaqeynayay dadka nimanka maamulka sare iskale tvga iskale iyo shaqaalaha qof aan xumaan ama dhibaato ku arkay ma jirto
oo igama mudna midda saddexaad wax jira ma ahan midda afraad aan kugu daro 11 sano iyo barbaan waxaan ku lahaa universal TV waa TV-ga ugu fiican maanta inaan idhaahdo waa ka tegay waa xun yahay macquul ma ahan sax ma ahan marka waa TV-ga ugu fiican waa dadka ugu ikhyaarsan oo loo shaqeeyo waa gacal waa walaalo ku xirnaada ka warqabo anna daaha dabadiisaan kala shaqeynaya ayaguna igala shaqeynayaan waxaa jira waxyaalo badan ayaga uga baahanahay iyo waxyaalaha ayagu markaas ay iga baahan yihiin dad isku xiran oo weligood kala goyno caysho milxa marka warxumo tashiilkii waxaan jeclahay inaan halkaa kusoo gabagabeeyo hadallada suuqa lagu fasanaya halkaa aan kusoo gabagabeeyo TV-ga universal la'aantiis waa abaar horumar iyo wanaag baan u rajeynaya qayb ka mid aan ahaanaya weligay reference point weligeed buu ahaanaya wanaagsan dad ikhyaara weeyaan fadlan ku xirnaada barnaamijyada ka qayb qaata comment ka bixiya fikirkiina ka dhiiba halkan iminka aad iga daawanaysaan ayaadna igala socon doontaan markaan waqti helaba in yaroo inka qoslisiisa inaan kugu soo tuuro ama markaas maskaxda la challenge galay oo garaad kobcin ah ama horumar ah ama faa'iide ah haddii ilaha yidhahdo marka walaalayaal intaas ayaa jecel adoona soo gabagabeeyo dad waxaa jira suuqa already soo geliyey qoraalle soo gaaraya oranaya Cabdixafiid TV hebel buu ku biiraya waxba waxaas kama jiraan oo TV haddaan u socdo ama xiriir naga dhexeeyo ama go'aan la qaatay ma jirto marka sidaas ogaada dajiya halkaan weeye TV-gaygu aad igala socon doontaan haddii ilaa yiraahdo marka guulaysta shatayala ayaan waqti halkan gelin doonaa haddii ilaa waa mahadsantihiin waxaan jeclaa ugu dambeyntii inaan si xagar la'aan ah oo walaaltinimo ah ugu mahad celiyo museyga weyn shariifka weyn xamduuni oo ah dadka inta badan engineer ah ay wejigiisa yaqaanaan gundhiga TV-ga universal general manager-ka ah saaxiib ixtiraam badan aan ku haya allah ku ciseeyey adduunya aakhira walaal gacal oon jeclaha tahay engineer axmed macalinku hayntahay waa ku salaamay waa kaaga mahad celinayaa fursadaad isiisay in aan TV-gaaga ummadda soomaaliya soo hor istaago muddo 11 sano iyo bar ah waqti fiican baan soo wada qaadanay tiimka kaloo shaqaalaha way badan yihiin marka ma raba inaad kala doorto laakiin ayagu way isog yihiin allah karaameeye reer universal london haddii ahaan lahayd universal maxaa la dhahaa xamar hadday ahaan lahayd tangarow hadday ahaan lahayd tiimka hargeysa hadday ahaan lahayd dambaydhaba hadday ahaan lahayd kismaayo iyo galmudug sidoo kale iyo weliba hirshabeelle inta joogtaba saaxiibin oo idin mahad celinaya kulligiin xubin idin ka mid a ayaan ahay weligiina ahaan doona haddii la yidhaahdo wax lala shaqeeyo oo la garab istaago ayaad ugu wanaagsantihiin allah idin karaameeyo barnaamijkan waxaa idiin farsameynayay saaxiibkay cabdifataax cali shirwac waryaheena weyn anigoo cabdixafiid la socodsiinayey waxaan idinkaga tegayaa guul iyo gobonta assalaamu calaykum